marka koowaad waxaan bogaadinayaa hay'adaha dawladda iyo kuwa qaramada midoobay oo shaqooyin wanaagsan ka qabtay dhanka dawladaha hoose sanadii la soo dhaafay sida aan maqlaynana oo warbixinada ay dawlad goboleedyadu noo soo gudbiyeen runtii waa wax ka soo jiray oo dhibaatooyin siyaasadeed ah haddana shaqadu way socotay haba dibdhac weyn baa ku jira marka labaad waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada caalamiga ah ee mashruucan taakuleeya mashruucan wuxuu mashaariicda kale kaga duwan yahay waa mid ay ka shaqeeyaan waa mid ka shaqeeya dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliya haba ugu xoog badnaato Puntland iyo Somaliland oo runtii guulo la taaban karo ka gaaray waxaan rajaynayaa in dawlad goboleedyada kale iyo gobolka Banaadirna uu mashruucan xoog saaro in looga faa'iideeyo iyadoo caqabaduhu ka yaraanayaan kuwii hore maadaama la hayo casharadii mashruucan laga soo bartay maamulada uu sida wanaagsan uga hanaqaaday sidoo kalena ay jirto xasilooni siyaasadeed oo dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ay si wanaagsan u wada shaqeynayaan sida indhihiina aad ku aragtaan ama muuqato waa fursad muhiim ah maanta in wajigii afraad qaabkiisii laga hadlayo dabcan midkan hadda dhamaadka ah markii la sameynayay xaalku sidaan waa ka duwanaa oo markaasi degmooyin mid labo baa ka jiray maamulada afarta ah ee Galmudug iyo Hirshabeelle South West iyo Jubbaland laakiin maantay runtii waxaan rajaynaynaa ambaqaad fiican iyo experience fiican in laga helay shaqadii hore ka dawlad ahaan waxaan rabnaa inaan qaabaynta program design inaan wax badan ku kordhino gaar ahaan waxyaalaha aan u aragno in dani ugu jirto dalka iyo dadkaba numberka labaad wajiga afraad ee mashruuca JPLG sida kulankii dawladda aan wada galnay 12 bisha maalinka Sabtida bisha November kaasoo ay ka soo baxday in dawladdu ay maalgelintiisa intii tabarteeda gacan ka geysato oo awal aysan banaan joog ka noqon dawladdu dhaqaalaha horumarineed ee degmooyinka loo qondeynayo namarka saddexaad waxa weeye inaan cashar ka baranno caqabadihii wajigii saddexaad gaar ahaan dib u dhacyadii ku yimid fulinta shaqooyinkii sanadkii hore qorsheysnaa sanadihii la soo dhaafay qorsheysnaa afar maadaama degmooyin badan ay dhismeen gaar ahaan Galmudug iyo Koonfur Galbeed kuwa badan ay hadda dhismayaan oo qorsheysan yihiin sidaad maqlayseenba waxaan rabnaa in wajiga afraad aan ka ballaarino qoondada dawlad goboleedyada qoondooyinkii hore ee wajigii saddexaad ku jiray si loo badiyo degmooyinka ka faa'iideysanaya mashruucan waayo hadda si xawli ah ayay ku socdaan Hirshabeelle oo naga maqan maanta wasiirkii shalay wuxuu ka sheegay halkan in degmooyin afar ah oo caasimadda Hirshabeelle ay ku jirto Buulobarde ay ku jirto ay u qorsheysan tahay bilaha soo socda wasiirada kalena ayaga sheegay shan waxaan rabnaa in wajiga afraad ee mashruucan lagu soo kordhiyo arrimo aan u aragno sida arrimaha dimuqraadiyeynta degmooyinka in loo diyaariyo in degmooyinku gaaraan in shacabku iyagu doortaan cidda matalaysa taasina ay ku timaado ka qaybgelin bulshada ka guuritaanka hanaankii horay ay u yaqaaneen in bulshadu ay qayb ka ahaato marka laga guurayo hanaankii odayaasha dhaqanku ay soo xiliyeen golayaasha deegaanka oo qof iyo cod marka loo gudbayo in bulshadu ay qayb ka ahaato guuritaankaas oo aysan maamulada kaligood guurin isbeddelka cimilada climate change oo hadda gobolka Banaadir aad ka maqlayseen xogayaha guud waxaan rabnaa ka jawaabidda isbeddelka cimilada dawladaha hoose in ay dowr muuqda ku yeeshaan waayo waa meesha gundhiga oo bilowga maamuladaba ay ka soo dhismaan dadka shaqada qabanaya rasmiga waa iyaga guud ahaan mashruucan wuxuu noqday mashruuc wax badan oo ammaan ah leh
taasoo kaga duwan yahay mashaariicda kale gaar ahaan kobcinta iyo awoodda dowladaha hoose kobcinta iyo awoodsiinta dowladaha hoose maamul daadejinta iyo adeeg bixinta misana weli waxaa muuqda caqabado u baahan in si wada jira dowladda Soomaaliya doonariska iyo hay'aduhuba ay si wada jira u xalliyaan mar kale waxaan bogaadinayaa doonariska maalgeliya mashruucan xaqiiqdii wax badan oo la taaban karo wax ka taray nolosha dadka Soomaaliyeed ka dowlad ahaan waxaan naga go'an inaan fududeyno wax kasta oo dhanka dowladda dhexe ku xiran oo la xiriira mashruuca JPLG-ga inuu ka hana qaado Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa markii dowladdu ku darto aragtideeda in wajiga afraad uu noqon doono kaliya dowladda kaliya maahane iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo soo jeediyay runtii aragtidooda ku aadan mashruucan wajigiisa afraad markaan ku wada darno in wajiga afraad uu noqon doono mid wax badan ka bedela habnololeedka dadka Soomaaliyeed iyo hanaanka dowladnimo annagoo rajaynayna in dhawaan degmooyin qaarkood ay u guuri doonaan laguna soo doorto xubnaha iyo madaxda matalaysa hanaan qof iyo coda sida hadda Puntland ka socota waana bogaadinaynaa arrintaas mar kale waxaan u mahadcelinaynaa madaxda iyo mas'uuliyiinta shirkan ka soo qayb galay oo ay ugu horeeyaan wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedyada madaxda gobolka Banaadir dhammaan agaasimayaasha guud iyo howlwadeennada sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxda safaaradaha saaxiibka aan nahay ee caalamka iyo madaxda hay'adaha UN JPLG dhammaantiin waan mahadsantihiin waxaan rabnaa in hawsha wajiga afraad ay noqoto sidaas hadda lagu tala bixiyay ayna ka xoog badato rajaynayno sanadka soo socda markaan halkaas ugu nimaano in degmooyinka la soo doortay ay noqdaan kuwo nus Soomaaliya degmooyinkeeda ku dhow inay noqdaan baan rajaynaynaa sidaas awgeed waxa la wixii facilities iyo howlahaas hirgelintoodana waxaan rajaynaynaa in dhankiina ay ka soo dhawaato waa mahadsantihiin shirkuna waa noo furan